اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا يا رب العالمين. إلهو دنبيغيغا iyo dembigii waalidkayaba dhaaf. ilaahow Soomaali ama sidooda iga dhig ama sidayda ka dhig. waxay rabaan waan garan waaye, meeshay u socdaan waan garan waaye. kolka laga reebo dan shakhsi iyo qaranna isma galaan, qabiil iyo qaranna isma galaan. alxaqiiqa aan dib yar taariikhda ugu noqdo. war idinkaan idin weydiinayaaye 1960 yaa midoobay? ma qabiil baa lagu midoobay mise waxaa midoobay labadii gobol ee mustacmarka Talyaani iyo Ingiriisi kala haysteen? haddii qabiil lagu midoobay waxa siciidani shubaayo waa daw. war haddaan qabiil lagu midoobin siciidani waa gardaraya, waa majeerteeniya, waa koonfur buu wax la leeyahay. war inta aad ka hadlayso shirka Jabuuti gaalkacayo laba maamul kama dhismi karaan, kamana sii jiri karaan. sivini nimankaa la yidhaahdo habar gidir la heshii. cali garaad jaamac rabbi haw naxariistee buu ahaa ninkii yiri halla umul bixiyo. miyaanay markhaati fur ahayn in daraawiish jabkeedii kadib uu dhulbahanta ahaa waqooyi? moorasaante waa aniga, maxamuud harti iyo siciid harti baa ah reer waqooyi. waqooyi baanu ahay, British Somaliland Protectorate baanu ahay. dadkaa iyo isaaq iyo ciise iyo gadabuursi iyo qabaayilo kaloo aad u fara badan waqooyi bay ahaayeen. waaye haddii markaa loo midoobay waqooyi iyo koonfur, dowladina ay ka dhalatay, maanta wada hadallada Jabuuti meel uu ka soo galo Siciid Cabdulaahi Deni ma garanayo. meel baa u bannaanayd, meeshiina wuu garan waayey. koonfur baanahay. laakiin wax la yidhaahdo qabiil la yidhaahdo harti baan ku dheganahay oo hartinimaan rabaa inaan shirka kaga qayb galo. ururdo naga tag. cali daacuun baa nacay hartinimada, waana been, waana magacaan jirin. been idin sheegi maayo. qodobkaa intaasaan ku dhaafaya. anigu shirkaa Jabuuti waa taageersanahay. mar labaad waan taageersanahay. mar saddexaadna waan taageersanahay. waxna waa ka soo bixi doonaan, wuuna sii socon doonaa.
waana ku ammaanayaa madaxdii qaranka Soomaaliyeed oo isu dhan inay Jabuuti ka degto madaxdii Somaliland oo isu dhanna inay Jabuuti ka degto qodobkaana intaas ku dhaafaya marar badan baan Soomaalida la hadlay shalay dalka idinkaa burburiyey Soomaaliyey دور iyo 30 sanadood kadib taariikhdii aynu soo maray haddii aynu ku camal fali weyno ee uma jirtaba manihin waa ii muuqataa waan dareemayaa waan garanayaa dalka dambaa laga leeyahay dowladihii dumiyey baana dan kale iyagaana dhisanaya waayo idinku waxba dhisan kara weydinkaa un ku meeraysanaya reer hebel weydinkaa ku meeraysanaya maamul goboleed weydinkaa ku meeraysanaya أصحاب الكهف باتي وكرشادو وإذن كلنطي وطنيات ويلنطي مصالح شخصية قف قضب كانت ساكو دافية وحان إلى الطراد أقادي qoladayadan reer waqooyiga qaarkood ee jooga xamar inaanayba wada hadalka rabin warbal amuuratan kaalay weli balaaya habeen kama tegin oo waayo baan idhi kuraastaanu ku fadhinaanu waayeyna wadaniyadii waa allaaween midnimadii waa allaaween karaamadii waa allaaween الله يدي سو هدية الله قضب كان انتاس ايام كلها فيا احمد مدوبي سعيد دني nimankaa raba inay dalka hagaajistaan oo khayraad kala soo baxaan hay sarkeen dowladdan waxba kuma hadhin shirna way ku baaqday laba sano ku meel gaarana way siisay Axmed Madoobe xadiideen waa yaa kabla lahay ishhaada warba kabla lah baa dowlad dhisi kara warba kabla lah baa dowlad noqon kara warba harti baa dowlad lagu dhisi kara maya iimaanka Allah idin geliyo warma qof nacayb waa qof nacayb ayaa la diidan yahay inuu dalku dhismo oo haddii nimana kanis tagaan kan iman doona ay wax uga tagaan haddii ay soo noqdaanna meeshay wax dhigeen ay ka sii qaadaan wariyaa muslim islaameeda war dadkani Allah hadiyo mar labaad baan leeyahay الحقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.